بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وحان ماشا أصو فريساني برنامج كان لبا إمام أو واوين أو الصومالي أو مقع دير يادد بدن الشيكتان تاريخ دودان قلو عيار وحين أهين بيكو شيغان وجددي دو حوية وحي أهاين إنا شيغو قبيالة إقاماها وحي أهين وحوية أحمد قري أحمد إبراهيم إذن وحوي شيخ عبد الرحمن أحمد حسن أحمد قري وحو كل شيء قرني طبناده هجرتها وحو كل شيء هرر كونفور باري oo herer ku dhashay meesha hoobta la yiraahdo halkaas uu ku koray qabiilaha waxa weeye waa nin baal cadabsama ah abtirkiisu waxa weeye Ahmed Ibrahim Hassan Idris Birimbir baal cadabsama weeye dagaalka wuxuu ka bilaabay Amir Mahfoud oo Sayla xukumi jiray iyo Saaduddin oo Jaziiratu Saaduddin oo Sayla agteeda joogi jiray jihadka kuwaasa kula jiray أمير محفوظ قبل دي سيبو قرصة بعتيه الدلومبرة تقال كهالكاسو كبلابي شهددي وحوي أحمد قولي إن المجاهد وها للا شاهنا نكاسو هو أحمد إبراهيم حسن إدريس برنبر بالعذاب سموية أبتكي سوكا جهاد كمركا وقالي إن بدن بوقالي دولك إثيوبيا قيبتا تكريا قموي إنتا كالو بدا قبصدي بقركي إثيوبيا قبل دي سيبو إنتو سوق قادي يسعد الدين وجاي محمد سعد الدين بقى لسعود أسكرت الله سعود كمدها صومالي بدن إنه ولا سعودي أبادلياشي سوحان كجرن سحربي يهربوه ومريحان هاي دينع حق عروسة كده قال لما ين أمير عضلة وضدك أبيه لها كمدها أو أمير كوحق بدنها متان عثمان oo reejigsigaada gari ah oo walaashi qabay dadkii mataan Cismaan ka beermay hadda jigsigay in la joogan baaduliyashiisa kuwaas ka mid aha qabaa'il Soomaali oo ku jirin ma jiro oroma qolada maayada la yiraahdo ku jirtay sidaas Ahmed Gurey ahaa nin dhalashadiisu tahay mujaahida markii dambe gobolka Tigreega isagoo xagga ku socdo faras ka dhacay baa la yiri oo halkaas uu ku burburay marka dadka yiraahdo Marreexaan buu ahaa Amir Nuur baa jiray oo ka dambeeyay dadku Amir Nuur baa lahubaa inuu Marreexaan yahay oo isaga ka dambeeyay Imaam Ahmed Gurey markuu dhintay Amir Nuur baa herar qabsaday ilaa 10 oday oo isku abtirsado Amir Nuur ku absatay isaga dambeysay waxa ugu dambeeyay Amir Abdullah Abdishakuur oo Sheikh Abdi Raxmaan Zayle askar waan sheegi doonaa yaa ugu dambeeyay Amir Nuur kaas Marreexaan waxaan ku celinayaa al-Imam Ahmed Gurey Ahmed Ibrahim Hassan Idris Birimbir balcad saway sidaas oo ah jihadkiisuna sidaas oo ah waxaana gacan siinaya carabtii Sayla deganeed Amir Mahfoud iyo Saaduddin iyo Maxamed Saaduddin wala joogay dad badan oo Soomaaliyiin wala joogan Soomaali badan hadda dadka Soomaalida heerar hareeraheeda ku beeran ee daaroodka u badan waa dadkii isaga la socday Amir Ahmed Gurey wakaa ninka kale waxa weeye Sheikh Abdi Raxmaan Zayle Sheikh Abdi Raxmaan waa raxweyn buu ku dhashay magaalada Godle tuulada Godle la yiraahdo oo gobolka Bakool ku dhashay qabiilka boqol hore la yiraahdo Sayla yu kamid aha Sayla ciidan magaalada ma waa Sayla qabiilkiisa baa Sayla la dhihi jiray oo Sayla loo bedelay waxa weeye hadii dhalasho aan la yiraahdo waa nin makaayilo Ibraahiina وشيخ عمر ورفيق خالده وشيخ عبد الرحمن أحمد عثمان يوسف إبراهيم فقه خالد إبراهيم عمر إبراهيم وأبتركيس وكا هل كاسو يكون شيء وحبوب برتاي شيخ عبد الرحمن سوفي أشاشي أها شيخ براوي رجع وحوض برسان رجاسها كمدها شيخيسا وحكمدها أبو بكر بن محضار يا كمدها marka sheekhu dad badan ma dhaleen xagga koonfurta laba gabdhood buu ku dhalay gabadh waxa guursaday nin isla makaahilaho Ibrahim la yiraahdo yaa guursaday Xaaji Ali oo buu dhalay Ibrahimkii
marka waanu iman doonaa taas marka sheekhu isagoo xamar jooga oo caalimaha kutubta aqriyo mutafanina yaa sheekh Ismaaciil Maqdashi xaaji Umar oo aabihii uu abgaal yahay xagga ka yimid laakiin gabadh ogaadeenay dhashay waxa dhashay Xamda aw Nuur ay dhashay oo meeshan ku kacayo sheekhu dariiqaha xagga anfarta sheekh Xamza sheekh leeyahay dariiqada ka soo qaatay ya xagga ugu tagay oo suufi ah sheekh Cabdiraxmaan Zeylaci isagoo caalimo iska soo raacay sheekhaas wadankan u yimid Ismaaciil Maqdashi wuxuu degay magaalada Dhagaxmadow meesha Dhagaxmadow la yiraahdo waxa weeye xagga sululeeda oo Dhagaxbuur ay xukunto sheekh Cabdiraxmaan Zeylaci qulqul meel ay xuduud 75 kiiloomitir xagga hoose ka jirta yuu degay sheekh Cabdiraxmaan Zeylaci ma ahayn dariiqada uu bixin jiray laakiin awliyana ma dhihi jirin siyaarana ma guri jirin durbaan ma garaaci jirin ma xatrayn jirin qubad ma dhisi jirin dadka uu kutubta u aqri jiray dadku kutubta u aqri jiray waxdada wuxuu dhalay labada gabdhood gabadh koonfur bay ku waxay gabadhna nin makaahilo gacan weyna Ibraahim Liilaba guursaday xaaji Cali oo badhay xaaji Cali oo ba dhowr iyo kontonkii yu xagga raxweynta ka yimid reer makaahilo gobolkan sululeed deganaa sagag iyo agaheeda yu u yimid 62kii bay xagga dowladu wareegeen Faaduma Sheekh Cabdiraxmaan Zeylaci tarankeedii hadda yucbay joogan ilma Mahdi xaaji Cali oo yaa jooga meesha Sheekh Cabdiraxmaan Zeylaci ninkaas oo abtirkiisa baan ku celin Sheekh Cabdiraxmaan Ahmed Ismaan Yusuf Ibrahim Fiqi Khalid Ibrahim Umar Ibrahim way oo ka abtirkiisa waxdada intaas ka tagay meeshan markuu mid gabadh buu guursaday la yiraahdo Raaliye Sheekh Cabdi Samed Xaaji Barakaale gabadhaas dad isaga uma dhalin isagay qulqul kula asan tahay waxa uga dambeeyay sheekh xilkiisa kamid ah sheekh Abu Bakar oo Yusuf Umar Nuur la yiraahdo oo gabadha reerkooda oo reer qudubo reer samatara uga dambeeyay caruur u dhashay sheekh Cabdi Zeylaci waa ninkaas waa nin reerka raxan weyn buu ku dhashay laakiin dhashay ahaan waa nin makaahilo Ibraahim weeye sheekh Cabdiraxmaan Zeylaci ninkastoo wax sheega waa sida waxaan ku celinayaa waxa ninka mareexaanka ahaa ee dhulka xukumi jiray herer xukumi jiray waa Amiir Nuur mareexaan buu ahaa Allah ba oo Axmed Guri ka dambeeyay 10 isdashay oo garaad ba uga dambeysay uga dambeysay Amiir Nuur sheekh Cabdiraxmaan Zeylaci isagoo ku socda xajka iyo xagga qulqul ka yimid nin hereri ah oo Kabiir Khaliil la yiraahdo yaa lagu yiri nin Soomaali caalima inoo soo socda wuxuu saddex masalan weydiin haduu mid afraad ku daro waa caalim ninkii buu u yimid sheekh Cabdiraxmaan Zeylaci bariga herer waxa xukuma Amiir Cabdishakuur Amiir Abdullah Cabdishakuur oo Amiir Nuur ka wasiir qaba ninkii hererga wuxuu yiri sakana baladan aamina وشربنا ماء باردا واكلنا قاتا طيبا هو يا بدو بور marka saddexdii buu uga jawaabay wuxuu yiri magaalaan joognaa markuu yiri mashayna ardan waasican buur saad markuu biyaha qabo sheegayna mashayna ardan waasican wa sharibna laban khalisan wa akalna lahman tayyiban lahman tariyan wa abadna rabban waahidan buur ho ya haraf marka sayna tashayikha وافع ما أقتهي بوزن تفعله بيقولوا كتاب كان الشيخ صنفي حديقة التصريف كان اللي هل كان سكوت صنفي أمير عبد الله عبد الشكور با كتاب كي وبالله بيكون حمي وحلو ونيه الصومالي علم جاءوا يمجلي ورد كبراني باتهاي فريسود دول كفريسور رجال الله سبحانه بكو يري شيخ عبد الله زيلاعي وعنكها قول بكاء سنها وحدنا قبلنا سكت يا قبل كونفور كبابا قبلنا ترى كهذه قبل كدولات بهذا الشغل المهدي حاجي علي وإبراهيم وفاضل عبد الرحمن Zeylaci ay aabahood dhashay labada waqsida waqtiga dayacda dibka qoomameysa dadaal imika fursad door ah haysa waa casri dunida maanta adoo daartiina dhex jooga ka baro diinta islaamka darulfalaax.com
barayaal daacada dar ilaahay wax kuu bara daarulfalaax ugu kaalay ma danaynaysaa barashada qur-aanka kariimka ee habka online-ka daarulfalaax.com ayaa diyaar ku ah duruusta sida taxanaha uu bixinayo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka iyo higaada tarbiyada ubadka iyo qiraa'aadka qur-aanka kariimka dugsiga waxa uu ahamiyad siinayaa in uu ardayga xifdisiiyo qur-aanka kariimka taasi oo ka khafiifinaysa culayska waalidiinta waxaana meesha ka maqneen qayb cusub oo qur-aan saar ah ama cilaajinta haddaba isqoristu ay socotaa ee wixii faahfaahin intaasi dheer kala xidhiir telefoonada shaashada ka muuqda shacab yahow boqorani waa bishaaro maante guryihii batee marka ay baratameen waxaa buugga galay oo bilic looga haray guryaha ay dhisayso shirkadda Farjano Apartment Limited. haddaba bal eeg dhismaha ugu bilicda roon haddii baadigoob guri aad ku jirto ama baahi weyn aad u qabto waxaa inoo balan ah dhismayaasha ay gacanta ku hayso shirkadda Farjano Apartment Limited ayaa idin diyaarisay guryo aad u qurxoon oo dhismahoodu ay yihiin dhismihii ugu dambeeyay dunida shirkadda waxa ay ka dhisaysaa guryo kala duwan xaafadaha kala ah Islii Jujae Pangani California iyo Parklands waxayna mashruucan ka hirgelinaysaa caasimadda dalka Kenya ee Nairobi guryaha ay shirkaddu dhisayso ayaa ka kooban 4 qol iyo fadhi 3 qol iyo fadhi iyo 2 qol iyo fadhi guri walba waxa uu diyaarsan parkingkii gawaarida waxaad ka heli doontaa adeegyada asaasiga sida wiishashka guri walba waxa uu leeyahay ceelkaasi oo daboolaya baahida biyaha ha ka reebin kaamirada CCTV-da taasi oo la soconaysa dhaqdhaqaaqa amniga iyo adeeg waardiyo 24 saac sidoo kale waxa intaas u sii dheer motorka korontada nadaafadii goobihii jirdhiska iyo halkii ay carruurtu ku dheeli lahayd kaama iyo xarumo kale oo diyaar kugu ah qaar ka mid ah guryaha ay shirkaddu dhisayso wixii faahfaahin intaasi dheer kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqdo